laga yaabaa in badan oo dadka kale inay isweydiiyaan sababta kugu kaliftay buuggan inaad qorto maxaa kugu kalifay kuguna qaaday kuguna dhaqaajiyey ku dhiirigeliyey inaad buuggan waqti geliso ood qorto maxamuudow aad baan kaaga mahadnaqayaa waqtiga aad siisay iyo maaragtay soo dhaweynta ay soo dhaweysay su-aal waxay weydiisay muhiim ahayd maaragtay oo maskaxda ka guuxaysay in fara badan kitaabkan aan ugu magac daray the only one waxaan maaragtay ugu dhaliyay inaan qoro sida aan hore u sheegtayba marka aan soo galay wadankan Mareykanka waxaan dhigan jiray meelaha maaragtay lagu barto luqadda Ingiriiska waxaana la dhigan jiray dad maaragtay kala duwan oo wadamo kala duwan ka yimid sida maaragtay qaaradda Afrika ku yaala marka dadkaas waxay ahaayeen dad aan haysanin islaamka aan haysanin waxayna marar badan isku dayeen in maaragtay fikradooda ah taaluudka ama maaragtay trinity waxa la dhahaa inay maaragtay iga dhadhacsiyaan ama maaragtay diintooda ugu yeeraan markii aan dhageystay fikradahoodii aan arkay inuu maaragtay ay arrimahaas ay aaminsan yihiin jahwareer fara badan uu ku jiro baan waxaan go'aansaday inaan qoro kitaab ka hadlay tawxiidka iyo maaragtay in loo barax yeelo cibaadada Allah subhanahu wa ta'ala arinta ugu weyn ee ugu dhalisay inaan qoro kitaabka waa arintaas adiga marka intaas ka hor maxaysan jirtay qoraalka iyo wax qoraalka marka aan joogay maaragtay wadanka Kenya aad baan u xiisayn jiray waan maaragtay isku dayna wax qoro laakiin gacan qabasho ee maaragtay qoristaas ma helin laakiin markaan soo galo wadanka Mareykanka soo galo Allah subhanahu wa ta'ala ii suurtageliyay inaan qoro kitaabkan oo ahaa kitaabka ugu horeeyay soona baxay maaragtay bishii June ee 2021 maxaa kugu adkaaday markii aad joogtay Kakuma waxa kugu adkaado aad kari weyday in wax la qori weyday maxaa kamid ah waxa kamid ah horta maaragtay waxyaabihii la isticmaalay sida computerkii oo kale ama maaragtay qof tafatira ah oo ka ag dhow maaragtay inaan helin taas baa kamid ah maaragtay sababaha suurtagelin weysay inaan maaragtay markaas hamigii aan lahaa oo ah inaan buugaagta qoro aan kamir dhalin waayo laakiin marka inta imid wadanka Mareykanka imid markaas buu Allah subhanahu wa ta'ala ii suurtageliyay anigoo maaragtay tixraac ahaan markaas uu isticmaalay walaal degan maaragtay Kentucky oo la yiraahdo Nini asagana qoray laba buug oo ku saabsan maaragtay dadka in la dhiirigeliyo laba buug buu qoray midka kood waxa la yiraahdaa The African in America mid kalena waxa la yiraahdaa I must succeed inaan guuleysto waan culimada aan kitaabka markaan qoray aan ku xusay waxa kamid ah Sheekh Maxamed Abdul Wahhab oo ah sheekh qoray kitaabada usul thalatha marka sheekhaas kamid ah sheekhyada maaragtay aan ku soo xigtay kitaabka inaan tawxiidkan qorana waxa kale maaragtay aad igu dhiirigeliyay markii aan arkay wadaad maaragtay u dhashay wadanka Tanzania oo la yiraahdo Habib Uthman Mazinga oo ka hadlaya maaragtay kalimada Allah subhanahu wa ta'ala iyo in dadka diinta loogu yeero taas baa maaragtay raqbadii iyo jaceylkii inaan qoro buugga ayadana maaragtay asaas u ahayd gartay waxyaabaha ugu waaweyn oo buugga uu taabanayo buug badan tawxiid ah jira waxyaabaha ugu waaweyn oo uu taabanayo iyo dadka aad ugu tala gashay waa kuwa horta buugga arimaha ugu weyn uu taabana waxa kamid horta ummadda in la jecleysay Allah subhanahu wa ta'ala iyo maaragtay kalimadiisa waxaan ku soo qaatay tusaale cajiib ah oo ku saabsanaa su'aal la weydiiyay Bilal bin Rabah Allah karaal noqdeen su'aashaasna waxay ahayd waxa la weydiiyay Bilal maadaama gaalada ay ku cadaabi jireen oo cadaab fara badan lagu marsiin jiray sidee ugu adkaysatay maaragtay inaad ku sugnaato tawxiidkaas markuu wuxuu yiri waxa isku dhaxdarsamay uu yiri maaragtay darnaantii cadaabka iyo macaankii maaragtay iimaanka kadib waxa sare noqday uu yiri macaankii maaragtay iimaanka baa sare noqday kadib waxaan bilaabay inaan ahad dhaho oo markasta tawxiidka aan ku dhignaada maaragtay aanan ka tagin buugga wuxuu badanaa maaragtay loogu talagal oo la hadlayaa jiilka da'da yar oo maaragtay ku dhaxnool qurbaha oo aan diiday markaas maaragtay in fikradaha kale ay ku dhaxmilmaan ayna maaragtay noqdaan ummad waxtar leh oo maaragtay rabbigooda aaminsan maadaama maaragtay hadda qurbahan aan joogno ay aad ugu bateen waxyaabahan ilhaadka iyo calmaaniyada marka waxaan u qoray buug inaan helno jiil yar oo maaragtay Allah subhanahu wa ta'ala aqoonsan dadkoodana anfaca wax caqabada ah oo ka hor imaaday oo ma jiraan ku culays saaray ku culays galiyay marka qofku uu rabo inuu arin sameeyo mas maaragtay uu arin oo maaragtay umadu soo bandhiga horta caqabadooyin laga ma waaya caqabadooyinka maaragtay aan kala kulmay markaan qorayay kitaabkan waxa kamid ah in dadka qaar aan la wadaagay ay marka qaar ay ku leeyihiin iyo xilligii wax la qori lahaa iyo aqoontaas ma lihid ee maaragtay culimadu u dhaaf arimahaas
mararka qaar caqabadaha waxaa ka mid ah niyad jibin baan dhihi karaa in lagu niyad jibiyo ama lagu dhaha markaad buuggan qortid ama maaragtay kaaga timaada saameyn xun oo maaragtay lagu xiraa ama dhibaatooyin kale ka soo gaaraan caqabadooyinka waxyaabahaas ka mid ah laakiin midda kale xagga dhaqaalaha wax caqabad ah kuma jirin maadaama maaragtay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay khayru tacaami kasbul yad qofka muslimka markuu rabo inuu shay sameeyo waxaa la rabaa inuu dakhligiisa geliyo si maaragtay ummadda kale oo maaragtay wax u tara laakiin xagga dhaqaalaha wax dhiba kuma jirin laakiin arrimaha ugu weyn oo caqabadaha ah arrimahaas bay ahaayeen aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saciid Xasan Cusmaan oo qoray buugga The Only One doonayana dadka muslimiinta ah ee caruurta leh inay u iibiyaan si ay u arkaan role model qof iyaga lamid ah ama ladaah oo buug tawxiidka iyo baraxtirka cibaadada ilaahay kaligiis xambaarsan ku qoray luqadda Englishka isagoo waliba dalka ku cusub oo 2015 ka yimid xerada qaxootiga Kakuma aad iyo aad ayuu mahadsantiin inaad daawateen waxaan rajaynaynaa inaad hadaad ku aragtaan suuqa Carmel iyo meelo kaleba Saciid aad taageertaan caruurtiina aad tustaan tusaalahaas toosan ee togan ee la tilmaami karo waana mahadsantiin barnaamijka aad daawateen wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh